dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday go'aan culus oo ka dhana Imaaraadka Carabta kadib markii xukuumadda Dubai ay soo saartay wargaf ku ah Soomaaliya shir xasaasi ah oo filla Soomaaliya uga socda madaxweyne Farmaajo saddex madaxweyne maamul goboleed iyo danjire James Swan haddaba maxay ka shirayaan maxayse tahay go'aanka ay madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka ka qaadanayaan Axmed Madoobe iyo Saciidani oo iyagu diiday inay ka soo qayb galaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha dalka ee ka dhacay Muqdisho xogo dheeraad ah oo laga helay kulan xalay saqdi dhexe ay wada yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiye Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor haddaba maxaa ka soo baxay kulankaasi wararkeena kalena waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay qarax maanta ka dhacay Muqdisho iyo mas'uul ka tirsan dawladda federaalka oo ku dhaawacmay qaraxaasi Kenya oo qaaday tallaabo cadeynaysa in Soomaaliya ay ku guuleysan doonto dacwadda badda ee hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ iyo diyaaradihii caalamiga ahaa oo dib u bilaabay duulimaadyadoodii Muqdisho qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana galab axada 22 bisha 2 ee Febraayo sanadka 2000 ku eedeysay dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya isla markaasina ay dalka fooda ka abuurayso wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cismaan Obakar Dubbe ayaa waxa uu sheegay in tan iyo markii shaqooyinka ay ka dhaceen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ay soo gaareen qoraalo kala duwan oo ugu imaanaya dalal dhowr ah kuwaasi oo ka hadlayay xaaladda ka jirta caasimadda wasiirka oo warbaahinta kula hadlayay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in Imaaraadka Carabta ay soo saareen qoraal mugdi gelinaya midnimada Soomaaliya ayna aqoonsaneen dawladda Soomaaliya kaas oo Imaaraadka ay dawladda Soomaaliya ku tilmaamtay mid ku meel gaar ah waraaqo hambalyo iyo dhiirigelin ah oo inagu boorinaya inaynu adkaysano nabadgelyadeena iyo dawladnimadeena waraaqahaasi waxay naga soo gaarayeen wadamo badan oo aynu saaxiibnahay gaar ahaan wadamada Carabta oo markay maqleen caasimadda dhexdeedii oo laga leeyahay dawladda ma jirto aad u warwaray xalay ayay wasaaraddeena arrimaha dibadda soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinkii ka yimid saaxiibada caalamka uguna balbalaarinayaan sida wax u dhaceen laakiin halkan waxaan idinku yeeray in shacabka Soomaaliyeed aynu u sheegno ay la wadaagtaan in waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeena way keysinaysay mid madow muddo aad u dheer Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabtu waxa ka dhaxeeyay xiriir walaaltinimo mid dhaqan iyo mid ganacsi oo waliba aad u qoto dheer xiriirka labada dal iyo labada shacab waxa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ah dadka Soomaaliyeed waxay muddo dheer u hayeen dawladda Imaaraadka Carabta iyo shacabkeedaba qadarin aad iyo aad u weyn ilaahay ha u naxariisto Sheekh Zaid bin Suldaan Al Nahyan wuxuu ku qornaan jiray qulubta shacabka Soomaaliyeed aadna way u jeclaayeen sababtoo ah weligood wax dhibaateynaya kuma samayn wax taraya mooyaane iyadoo waxaa soo dhimi jiraan haddana muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii madaxda dawladda Imaaraadka u qaabilsan arrimaha dibadda ay u dhaqmeen si aan ka turjumayn walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdoodaba waxa galay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyaba waxa galay shaki ah oo inay isweydiiyaan in Imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda Soomaaliyeed habdhaqanadoodii dulqaad iyo ilaalinta walaaltinimada ayaa dawladda Soomaaliyeed ku khasbay inay markasta wanaajiso xiriirka labada dal si kasta oo loo tuhmayay oo loo tabanayay oo ay wuxuu muuqdeen haddana qadarinta walaalnimada iyo taariikhda iyo xiriirka ayaa dawladda ku khasbayay in ay ilaaliyaan wanaagga haddaba maanta waxa dawladda Imaaraad ka soo baxday warqadda aan kor ku soo sheegay midabka kala lahayd oo aan meel ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda qaynuunka caalamiga walaalnimada labada wadan iyo dhaqanka Carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in warqadda ka soo baxday Imaaraadka Carabta ay Soomaaliya xasuusay maalmihii la saxeexay heshiiskii doorashada ee 17 Sebtembar
in qaar ka mid a mas-uuliyiintii saxiixay heshiiska ay u safreen imaaraadka dibna ugu soo laabteen iyagoo wata shuruudo cusub. waxaa kaloo warqadan ka soo baxday dowladda imaaraadka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed dib u xusuusisay maalmihii la saxaxay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ee qaar ka mid ah madaxdii heshiiska saxaxday isla maalmihiiba ay u safreen imaaraadka kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata mar walbana keenaya caqabado hor leh. dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ka fajacsan tahay colaadda intaas leeg ay saraakiisha imaaraadku u qabaan dadka Soomaaliyeed ee jecel walaalahooda imaaraatiyiinta. dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeen noogu diidan yihiin nabadda, horumarka iyo wanaagga. annaguba intaa in leeg ayaanu la jecelnahay. shir uu uga bilowday madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha ee dalka madaxda ee dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir sida aan xogta ku helnay waxaa shirkaasi goobjoog ka wakiilada beesha caalamka oo uu hogaaminayo ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Swan waxaana looga hadlayaa arrimaha doorashada iyo xaaladda cakiran ee dalka Soomaaliya. shirkan oo ay ka maqan yihiin madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa uu imaanayaa xilli ay kacsan tahay xaaladda caasimadda dalka ee Muqdisho iyadoo maalmihii u dambeeyay ay ka dhacayeen rabshado u dhaxeeya dowladda iyo murashaxiinta mucaaradka ah. wararka ayaa intaasi ku daraya in shirkan uu hordhac u yahay kulankii uu horey u cilaamiyay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo isugu yeeray madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada isla markaasina ku taariikhaysnaa 18 bishan ilaa iyo 19 waxaa weli dalka ka taagan xaalad adag oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka midaasi oo ay si weyn isugu hayaan madaxda dowladda ee waqtigoodu dhamaaday iyo murashaxiinta mucaaradka ee iyagu u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya kuwaasi oo ku andacoonaya in dalka doorasho ay ka dhacdo waxayna sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo in doorashada dalka uu boobo. dhinaca kale waxaa xalayto kulan markaasi yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. waxaa lagu soo waramayaa in xalay saqdhexe ay kulan markaasi wada qaateen Qoorqoor iyo Farmaajo waxayna ka wada hadleen xaaladda cakiran ee dalka. wararka waxay intaas ku darayaan in Qoorqoor markii uu la kulmay mucaaradka uu kulan kale la qaatay madaxweynaha dalka Farmaajo waxaana uu la wadaagay waxyaabihii uu kala soo hadlay markaasi mucaaradka maadaama Qoorqoor uu si toos ugu xiran yahay filla Soomaaliya isla markaana uu ka mid yahay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee sida weyn u taageersan filla Soomaaliya. warqad TV ayaad nagala socotaan iminkana warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax nooca miinada ah oo maanta ka dhacay agagaarka isgoyska X Control Balcad gaar ahaan nawaaxiga warshada Xayla Bariise ee magaalada Muqdisho. qaraxa oo khasaare kala duwan geystay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala egtay agaasimo waaxeedka deegaanka Daarusalaam ee degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in miinadan ay ku dhinteen ilaa iyo 2 qof sidoo kale uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. sidoo kale wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxan ay ku burburtay mootobajaaj halkaasi maraysay. ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaaray goobta wax ka dhacay waxa ay halkaasi ka bilaabeen baaritaano kala duwan oo ay amniga ku xaqiijinayaan.